soo laabanaya marka sidaad hadalkaada ku dartay meelahaas oo kale oo dawladdu ay joogto oo meelaha ugu muhiimsan oo la wardiyaa inay dadka qaarkood wali hub wataan miyaan laga joojin karin miyaan la dhihi karin aagani waa aag ka mamnuuca qoryaha la qaato xaqiiqadii aan qirana ceebteena taas weeye sidee ammaanka loo sugi karaa haddii qof caadi oo shacab qori wato aagii dawladda ay degneed isagoo qori wato waa runta taas waa jirtaa hopefully in aan xalinaan isku day 20 sano kadib markaan ilmihii korinay waxaan isugu imaanay dalkii aad u burbursan annaku qabiil ma lihin gobol ma lihin jabhad ma lihin oo gabadh jabhad leh miyaynu lahayn intii jabhada dagaalamaysa adduunka baxbaxaysay maynaan lahayn inaku marka waxaan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed inta ay hal noqdaan hadii Ilaahay nafta inoo daayo inaynu rageennana aanu rag haleeriyo ma lihi rag hala kaaliyo oo hala garab galo oo wax la qabto oo nabad iyo dalkaba hala dhiso maxaa keenay in waqtigan hadda la joogo Ingiriisku faragelin ku soo sameeyay siyaasadda Soomaaliya 19 sano kadib dhibaatadu ay ka dhacayso waxa weeye waxa isku xirmay adduunka baa wuxuu noqday global waxa isku xirnaa macnaha network isku xiran buu noqday wixii ka dhaco Soomaaliya inay Ingiriiskana soo gaarayaan Mareykanna soo gaarayaan baa la ogaaday waxa dhacday caruurtii ay iyaga tarbiyeysteen ee wadankooda ku dhashay ee wadankan lagu barbaariyay ayaa noqday wixii ay ka cabsanayeen in Soomaaliya laga arko محمد مختار oo ah dhaqaale yaqaan oo ku taqasay xagga dhaqaalaha isla markaana ah taliye xagga ganacsiga ah sidoo kale waxay la fadhiyaa Maxamed Cabdi Umar oo ah doctor isla markaana ah macallin wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan oo ku taala dalkan Ingiriiska sidoo kale Xasan Xaaji oo ah garyaqaan oo isla markaana ku taqasay xagga shuruucda iyo waliba bini'aadnimada shuruucda bini'aadnimada watahay waxaan jeclahay marka hore inaan qaybta ugu horeysa aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo barnaamijka oo aan ku eegin xagga doorashada sidaan hore u sheegay waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore ka bilowno musharaxa sharxay waxa loo baahan yahay in laga eego ama looga fadhiyo iyo shuruudaha la doonayo lagu eego lagu doorto dabcan xildhibaanada ayaa codkooda bixinaya waa muhiim inay eegaan qaarkood ay ku soo xulaan qofka ay rabaan inuu cod ka siiyaan shuruudihii ay ku xuli lahaayeen waxaan jeclahay inaan maxamed ka bilaabo maxamed maxaad u malaynaysaa inay muhiim ku tahay ama lagu sida sharciyada ama qodobada ay muhiim tahay in musharax lagu siiyo cod ama lagu doorto ama looga fadhiyo hawsha inuu qabto qofka madaxweyne noqonaya waa qof la doonayo inuu u adeego bulshada Soomaaliyeed hadda number sax ah horta oo bulshada Soomaaliyeed intay dhantaa lama yaqaano laakiin qiyaas ahaan waxa lagu sheegaa 9 milyan iyo bar 10 milyan oo kale inay tahay maadaama wadanka fursad aan ka jirin ay dadka toos u codeeyaan waxa la yiri waa inay baarlamaanka uu codeeyo baarlamaanka waxa uu ka kooban yahay 225 celcelis ahaan marka qofka baarlamaanka fadhiyo ee berita codeynaya waxa uu matalayaa 35 oo Soomaali ah ayuu codkooda matalayaa waa qofkiiba marka waa fahmi kartaa mas'uuliyadda qofka saaran okay qofka uu doonayo marka in uu u adeego bulshadan marka macnaha marka la yiraahdo sharciyan kulli way soo fuliyeen macnaha shuruudihii uu dastuurka qoriyay iyo shuruucdii ay baarlamaanka u dajiyay ay yiraahdeen waa inuu shuruudaha soo buuxiya 25 musharax hadda sharxan way soo buuxiyeen marka ma filayo inuu jiro sharci dambe oo u haray sharciyan marka laga hadlo inuu leeyahay laakiin waxa hartay jeeda qodobadii la qoray oo inay soo dastuurku inay soo buuxiyaan mana daadiyo kale sharax noqdaan daadiyo kale macnaha waxyaabahaas oo kale way soo buuxiyeen laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay 25 kan kee istaahilo ama kee ugu fiican ee matali kara ee Soomaaliya isla markaana dhibka ka saari kara ee wadankan okay saddex shay aan baan dhihi lahaa waa loo baahan yahay marka ugu horeysa waa inuu noqdo hogaamiye aragti leh sababtoo haddii la rabo in laga dhaqaaqo meesha aan taaganahay loo gudbo meesha aan doonayna ee ah wadan Soomaaliya degan asaga dhexdiisa amaan ah wadamada dariska amaan ku qabo isla markaana bulshadeeda horumarto dawladana ay noqoto dawlad u adeegta dadkeeda marka waxa shardi ah inuu leeyahay hogaamiye aragti leh inuu yahay asaga marka hore mid labaad waxa muhiim ah in uu aragtidaas u gudbin karo dadka asaga la shaqeynaya
iyo bulshada Soomaaliyeed sababtoo ah muhiim ah kaliya qofka inuu aragti leeyahay laakiin aragtidaas waa inuu u gudbin karo inuu leeyahay communication skills xirfad uu gudbin karo iyo mid saddexaad oo ah inuu yahay qof adeegiisa u bedeli kara ama qorshihiisa u bedeli kara ficil marka kuwaad imaan kara qorshihii isla markaana qorshihii u bedeli kara ficil marka aniga waxaan isleeyahay saddexdaas ay u gudbin kara u bedeli kara mana qorshihii oo la qorsheeyay u bedeli kara ficil sababtoo macna badan ma sameynayso in qorshe waraaqad badan lagu qoro la yiraahdo macna qorshaha sanadkii waa kan ama waxaan doonayaa wadanka inaan nabad ka dhigo ama wadanka waxaan doonayaa dhaqaalihiisa kor inaan qaado ama macnaha dee waa inta waa hadal laakiin sidee ayaad wadanka dhaqaalihiisa kor ugu qaadaysaa qorshihii la yimaada isla markaana qorshihii u bedela ficil waxaan gudbayaa maxamed cabdi maxamed adiga maxay kula tahay waqti qudar lahayd maxamed run ahaantii xulashada hadda musharaxiinta usoo baxay inay u tartamaan doorashada madaxweynenimada laba system baa horyaala mid waa midii shuruudaha ay ku xiran guddigii soo xulahayay oo siiyay ilaa 8-9 point oo ay qofka ku xulhayaan ku aqbalahayaan inuu jagadan u sharxi karo tan kale waxa weeye waa mid guud ahaanada qofka laga fiirin karo qof kasta oo Soomaali ama xaaladda maanta wadanka uu ku jiro lagu cabirayo oo ay kamid tahay qofka inay wadaniyadiisu awalan tahay inuu nin wadanka jecel yahay inuu nin wadanka wax walba ka horumarinayo uu yahay dadku waxaad moodaa xogaa yar inay yara taban hayaan dawladii ku meel gaarka ah la soo maray oo aad iyo aad ugu janjeeray maaragtay international community-ga awoodooda inta badan xaggooda ay ka socotay laakiin hadda baahida loo qabaan anigu aan filayo in lagu salayn karo inay tahay qofku sidoo hadba dadka Soomaaliyeed dhibaataysan maanta ugu dhawaan kara micnaha oo u tusi kara micnaha maanta in wadaniyad Soomaalinimo ay isku soo noqoto ay jirto waxaan kaloon qiyaastii anna haddana oran karaa waxay tahay waxa loo baahan yahay qof maanta balance leh balance markaan leeyahay waxa weeye anaga kaliya maanta ma aha miisaan leh anaga kaliya maanta ma aha waxa laba wajiba maanta Soomaaliya hortaala oo ah mid gudaha ah oo qofku inuu dadka qancin karo oo wax qabadkiisa iyo systemkiisa iyo qorshaha uu wato dadka ay aad u gelin kara iyo nin la xisaabtami kara international community-ga maanta taasoo ah culayska ugu weyn ee maanta wadanka saaran run ahaantiina waxay taas hoos imaanaysaa qofku inuu yahay qof well educated ama khibrad u leh systemka siyaasadda adduunka iyo international community-ga waxa ay sida loo dhil garayn karo anu taa baan ku kordhin lahaa walaalkeen uu sheego shaqadii dawladnimo marka shaqadii isla maxamed shaqadii dawladnimo marka qofkaas laga rabo maxaa kamid ah oo lagu siin karaa ahaantii processkii iyo hadaladii tirada badnaa ay u soo mareen markii ay ballan qaadayeen waxyaalaha ay qaban doonaan kulli systemkii iyo baahidii dadka way ka wada hadleen shaqadii u taylay rag badan baa soo bandhigay oo run ahaantii tusay inay ilaa awalan shaqada uu qaban haya ay kamid tahay ilaalinta sharciga iyo nabadgelyada iyo xuquuqda dadka waana waxyaalaha dadku aad iyo aad hadda ay u tabahayaan qofkaasi inuu ku saleeyo shaqada ugu horeeyo qaban doono markuu madaxweyne ka noqdo wadanka waxaan jeclahay inaan siiyo xasan xaaji xasan dabcan sharciyan maadaama arrintaadu sharci ku saabsan tahay qofkii isu soo sharaxayay madaxweynenimo caalami ah maxay tahay shaqada looga baahan yahay ama la gudboon xildhibaanadu inay ka eegaan qofkaasi inay siiyaan codkooda oo si sharciyan ama maamul ahaan ah nidaam بسم الله الرحمن الرحيم سؤالت عليك يا صحابة مش فريدة وعليكم السلام يا جماهير الكلام ميل كستو جوغان وان سلام يا سيدي كل ولا شيغان ميشان وان كرع سناي مشرحين الشروطي او دستورك ugu baahana way soo buuxiyeen waana laga fiiriyay marka saas daraadeed iyo maaragtay loo ogolaaday inay ka qayb qaataan oo la leeyahay maaragtay doorashada laakiin waxaan ka fiirinaynaa maadaama oo ay yihiin waxaan ku magacaabaynaa waa dad shaqo doona shaqo ay raadinayaan waxaan haynaa waxaa la hayaa maanta CV-yaalkooda waxayna shaqo ka doonahayaan baarlamaankii inuu shaqada siiyo baarlamaankii maanta waa hay-adii shaqada bixinaysay hay-adii shaqada bixinaysa maanta waxay dooranaysaa madaxweynihii qaran wuxuu noqon doonaa astaantii wadanka uu ilaalinayo oo uu yahay wuxuu yahay guardian ilaalihii guud oo qawaaniintii oo
qaranka sababtoo qaanuun kasta oo lasoo mariyo baarlamaanka asigaa loo geynaya saxiixaya marka shakhsiyada maanta la rabo in la doorto waa shakhsiyo aada iyo aada muhiim u ah maadaama jagadaas saas muhiim u tahay marka xildhibaanada maxaa looga baahan yahay shakhsigaas oo kale inay ka fiiriyaan waa kasoo qaada example ahaan qof hadduu ku imaado aad shaqo u haysid waxaad qaadanaysaa qofka ugu wanaagsan oo shaqadaas kuu qaban lahaa marka fursadana baarlamaanka haystaan kolley waa hal furso oo hadda haystaan oo hadday dhaaftana ma soo noqonayso marka waxaa looga baahan yahay marka inay fiiriyaan maxay ka fiirinayaan meesha waxaa loo baahan yahay walaalahayna waa taabtaan arrintaas long term vision qof aragti dheer waa inuu ahaada aqoona leh aqoontii aragtada musharaxiinta dhan in laga heli karo way tahay laakiin waxay dadku ku kala duwanaanayaan shakhsiyad markii macluumaad kala duwan isla mar loo keeno oo waxaa la yidhahda comprehension istowcaab markiiba ay qaban karto yaa loo baahan yahay waa in aqoonta iyo macluumaadkaas fahamkooda qofkaas uu yahay qof dhaqso uu ku degdegi karo oo arrintaas samayn karo qodobka kale aan dhihi lahaa qofkaas waa inuu ahaan qof maslax khaas fiirinayo meesha masaalixda waa isku darsamaysaa waxay u kala baxdaa maslaxo caama oo maslaxadii qaranka ah iyo maslaxo oo khaas ah oo shakhsiyadii nafteeda ka faa'iidaysanayso oo dantii qofkaas lahaa uu rabo inuu fushto mase asxaab mase qaraaba waa inuu fiirinin intaas oo maslaxada guud mar kastaba uu fiiriyo haddii maslaxada guud sababto markii hore waxaan dhahnay waa guardiankii waa qofkii oo ilaalinaya oo qaranka isku haya saantii ah marka waa inuu intaas fiiriyo qodobka kale aan ku dari lahaa waa waxaan dhahaa integrity macnaheedu waxaa way qofka shakhsiyadiisa waa in ay ahaataan shakhsiya oo waxyaabo hoos ay usoo degaynin taas waxaan ula jeedaa shakhsiya oo lacag mase arrimo kale decisionkeeda ma go-aankeeda lagu bedeli karo waa go-aan qaran baa ninka loo fadhiyaa meesha markaa siyaasad qaran baa meesha taasha waa in wax kastoo dhaco iska bedelin maslaxada guud shakhsigaas asigoo fiirinaya waxaa kale la rabaa objectivity waxaan ku magacaabayo sababtoo shakhsiyada la dooranayo maanta waxay gaaraysaa go-aamo kala duwan kasoo qaad maxkamada sare maxkamada dastuuriga ambassadors dadka agaasimaha oo dadkan la dooranayo kulli inkastoo prime minister iyo oo ay dooranayaan qaar ka mid ah recommendation lagu dooranayo waxaa maaragtay madaxweynihii maaragtay waa inuu approve garaya laakiin markuu approve garayna waa in objectively u fiiriyaa shakhsigan maxaa lagu doortay karti aqoon daacadnimo qaran jacayl wixii waa in asigana laga fiiriyo hadda arrintan hadda u fadhiino hadda aan ka baarayno maaragtay dadka hadda madaxweynahayaas la dooran doono laga fiirinayo waa in arrintaas maaragtay ayadana loo shakhsiyad oo saa u fiirin karto waa inuu ahaado accountability waxaan leenahay shakhsiya ogol in lala xisaabtamo waxaa jirta baarlamaana meesha jir saddexdii hay-ad baarlamaankii oo sharciga dejinaya iyo hay-addii kale oo ahayd hay-addii fulinta iyo garsoorkii marka hay-ooyinkan waa iskabaan waa inay iscaawiyaan calaaqaadka ka dhexeeyeen waa calaaqaad fiican waa inuu ahaada calaaqaad shaksi waa inay ahayn laakiin calaaqaad oo qaran oo si fiican u shaqeynaya waa inuu ahaada shaksiyad isku xiri karto intaasoo hay-adood isla markaasna kor ahaan ka kormeeri karo diyaarna u ah in maaragtay laga weydiiyo su-aalo in la fiiriyo shaqada siduu qabanayo diyaar u ah waa inuu ahaada accountability shaksiyad sidaas oo kale open taasay lamid tahay
يعني وين شخصي لو إيمان كانوا لا تشين كانوا واحد اللي جوا يدين كانوا وين هذا qof furfuran قف فرفر وين وهذا ما عندك honesty قف وين الدعاء هذا الدعاء ما هو مهم يعني ما دام قرن كده قف كان هجامين أيوه وإنه دعاء هذا وحكى له باهني leadership quality وحلقة leadership لماذا دتك وانا لبرتا ضد إلهي ما أعرف هيبقى أنا وصيين واجرتا لكن شخصية ما أنت هدي أي كسوه في ديستو مثل قرن كمثل يسو هذه كرتو هي بداية نظام كذا يعني leadership quality إلى غير مركا أنا ما عندي أنا في ريان برلمانك ولا جمال مارمان لابو فرصة هايستن إن أي دورتان أو كوكولستان شخصي لو مهم سنة كل دور شيء هور وحقصه بحي بروفيسور جواري ضد بدن سودوي دور شيء صحيح وأركان إنه هاي شخصية أركت دير خطبتيس مركز دقيستين وكهلا جامعة لها سومالي مركز فيريو تونسن جوده سداي سومالي وأركانته وفيجن دير وكهلا هذا وحلو بعدين مركز شخصية نوع عصو فيجن كاسله أنت أركتداس مركز أنت عندنا مركز نسكسو در وحكسو كوبي لها دتك هاد مشارحين تا والله هاي تاريخ نولات كود والله هاي waxay soo qabteen waa la hayaa xildhibaanadu waa inay dib ugu noqdaan ay fiiriyaan shakhsiyadaas hortaagan maanta ay rabaan inay ka dhigaan madaxweynihii qaranka waxay soo qabatay shakhsiyadaas waxaan soo qabanin go'aamihii ay gaartay kuwii qaladka ahaa kuwii sax ahaa iyo visionka hadda leedahay shakhsiyadaas sidii Soomaaliya dhibaatadan ugu bixin lahayd meel fiican u gaarsin lahayd waaya طبعا سيدا محمد مركو هore ka dhawaaji qofku inuu aragti dheer lahaado aragtidaas maxaa ka mid noqon kara macnaha ma inuu eego mustaqbalka soo socda sida sheegtay inuu qof furfuran ahaada maxaa ka mid ah aragtidaas dheer oo kale aragtida waxa keeni kara waa business plan oo kale meeshan waxa wadan dhan baa loo dhiibay muddada loo dhiibay waa 4 sano 4 sano maalin kastaba markii la soo kaco wixii bari dhici lahaa in la sugo ma waa qorshihii 4 sano ah waa in hadda la haayaa oo la leeyahay intaasan qabana wixii la qabsamo weeyeen habka lagu qaban lahaa hadda ma maartay lagu gudi karaa waaya waxaan gudbeynaa marka musharaxiinta soo sharxay qodbooyinkii ay akhriyeen ay ka soo jeediyeen baarlamaanka hortiisa inta badan way isku dhawaayeen marka loo eego qolyihii dawladda ka soo shaqeeyay hadda way isu dhawaayeen waxayna ku mana sheeganayeen shaqadii ay soo qabteen fankii ama ay ku mana sheegteen waxyaabo kale oo ay la imaanayaan way sheegeen oo ay ka mid yihiin ammaanka dhaqaalaha adeega bulshada xiriirada caalamka oo kale marka waxaan rabaa inaan hoos u soo tagno marka ammaanka marka loo eego xagga nabadgelyada maxamed jaan ku soo laabto maxay tahay waxa looga baahan yahay ama sideeba qofkaasi uu hadallada ay sheegeen ay ku dhawoobi karaan ama ay ku tahay dhab macnaha inay ammaankii sugayaan hawshaasi sidee tahay runtii ammaanka markaad fiiriso waxaad u malaysaa badankood inay culays ka saarayeen al-shabaab iyo qayb kale ku jirtay oo ahayd in ciidamadii dib loo dhisayo in manaha dib u heshiisiin la sameynayo laakiin waxaan dareemay hal arrin oo muhiim ah inay intooda badan ay ka maqnayd manaha markay ay sheegayaan horta waxaa u baahan Soomaaliya in la fahmo waa ay cidda diidan inay Soomaaliya nabad noqoto shakhsiyaadka ururada dawladda haddii aanan marka meesha laga amba qaadin oo aan la fahmin cidda diidan Soomaaliya ee loo qaato kaliya in al-shabaab ay wax diidan yihiin oo kaliya waxaad u malaysaa in ay aragti gaaban ay noqonayso sababtoo al-shabaab kaliya ma hortaagna Soomaaliya in ay nabad ka dhacdo marka nabadda la hortaagan yahay ayaa waxa u baahan marka dadkii badana sharxay wali maanan maqal cid tiri macnaha waxaan isku dayeynaa inaan helno dhammaan kooxaha dawladaha shakhsiyaadka hortaagan in ay Soomaaliya nabad ka dhacaan ayaan diidanaynaa waan hubnaa inay jiraan maslaxado raba in ay Soomaaliya ku sii jirto xaaladdan
maslaxadahaas marka waxay ilaalinayaan in aanay Soomaaliya nabad noqon marka laftigeeda marka waa caqabado u baahan in la fahmo oo rabo in national security lagu xiro arrinta nabadgelyada lagu xiro taa laakiin haddii barnaamijkan uu ku soo koobmo ciidamada qaranka dhisayna al-shabaab waa la dagaalamaya hawsha waa fududaanaysaa saa hawsha uma fududo manaha waxaa jiro shakhsiyaad kooxo dawlado hortaagan Soomaaliya inay nabad noqoto marka taa kamaanan maqal musharaxiinta intooda badan kamaanan maqal laakiin way ka hadleen inay ciidamada dhisayaan way ka hadleen inay dib u heshiisiin sameeyaan kuwa waa muhiim laakiin waxaad u malaysaa xoogaa culayska inay saareen in al-shabaab iyo amisom iyo haddii la isku halsado in ay arrinta ay nabadgelyada marka arrinta nabadgelyada sababta mar haddii wadanka uu nabad noqdo amaanka la sugo qarannimadii macnaha iyo dawladdu shaqadeeda way taabgalaysaa marka in la fahmaa muhiim ah cidda diidan sababtoo waxaa jira dad wadanka gudihiisa ku jiro iyo dad banaan ka maqan oo diidan in ay arrinta Soomaaliya isbedesho ama Soomaaliya talaabo hor u qaado soo marka taa horta badanaa way ka maqneed laakiin gabadhooda way ballan qaadeen oo macnaha in ay amaanka sugayaan oo ciidamada dib u dhisayaan oo mushaar ay siinayaan macnaha kulligood musharaxiinta intooda badan way ballan qaadeen ma la dhihi karaa marka laga reebo sida hadalka uu sheegtay al-shabaab iyo ciidamada in la dhiso amaanka waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo caqabad ku ah in la helo laftirkooda oo sababaya ama ka dambeeya jiridda hoose inay jiraan macnaha tii qabaayilka oo kale inay dhici karto wadamo shisheeye oo kale wadana gooni oo qolooyin macnaha hoos wax kaga sheego fikrado kale in ma dhici kartaa waa midaan ka hadlayo macnaha waxaa jira maslaxado badan oo raba Soomaaliya inay ku jirto marxaladan ayaa jiro ha noqdaan shakhsiyaad ama dana ganacsi markaas ha ugu jirto ama dana qabiil ha ugu jirto ama kooxo ama ururo ama dawlado jecel in ay macnaha Soomaaliya sida xaaladda ay ku jirto marka ilaa la fahmo marka from A to Z la yiraahdo okay cidda ay dhibayso Soomaaliya inay nabadeedo ay nabad noqoto in dawlad shaqeyso wadankan uu talaabo hor u qaado waa ay cidda ay dhibayso musharaxiinta macnaha taa ayaan ka filiyay inay culays ka badan saarayaan laakiin waxaad u malaysaa inay doorteen bas midda la wada yaqaan oo al-shabaab macnaha al-shabaab kaliya ma hortaagno waan ognahay dad badan baa jira ama urura jiro hortaagan Soomaaliya inay talaabo hor u qaado xasan hadalku maxamed ka dhawaajiyay waxaa laga yaabaa inay jiraan ammaanka macnaha sida ay ka wada hadleen dad musharaxiinta inay soo koobeen laakiin siyaasad kale oo sababi karta in ammaanka uusan noqonin mid degan oo u baahan in la eego caalamka iyo sidii Soomaaliya ugu xirantahay oo kale sababi kara ammaan darrada sidii aan sheegaynaba imaan korta kulli way ka hadleen laakiin waxaan waa leadership يعني هنجامينتا iyo aragtidii dheer aan ka hadlaynay hadaawe marka la fiiriyo ayay soo galaysaa hadda xaaladda say u socoto kulay waa amaanku way ka hadleen wixii ay qaban lahaayeen amaanka qaban lahaayeen way ka hadleen laakiin madaan u soo noqonayo haddii baarlamaankii iyo إيشك مدحوينه iyo xukuumadii ay shaqayn weeyaan isqabsi imaado hadda sidii hore u dhacday amaankii marka dhibaato weyn gaaraysa bedelkii ay isla wada shaqayn lahayn hadda isku noqdaan sidii hore u dhacday amaankii dhibaato weyn ku dhacay marka waxa loo baahan yahay system of governance habkii dawladnimada intay hadda dawladda ka shaqayso in si fiican loo hirgeliyo حاجة ما عرفتي مامولكا حاجة دقالها حاجة ما عرفتي civil society يو integration كا وحنا إلا سمايا إسلامر كاسنا حاجة جرسور كنا لا دسو ساس لو بلا عليه لكن مشرح أنت إيش هذا ودان مو داني سو كوبان ميل دو أو كلية أو كوبان أنت العرك كرادتك إيش هو قام كرتو سيد الشباب يعلموا كلية لكن أمانك يكفوك تهاي sida u dhigan iyagu ay ka fog tahay waxa sababi kara amaan darrada oo wax ka qabasho u baahan in loo baahan yahay wallahi amaan korta arrimo badan baa jira oo hadda Soomaaliya hadda muddadii badan oo dagaalka ka jiray faragelin fara badan baa lagu sameeyay sovereignty iyo wixii ma aragtay siyaadadii dhan hadda waa badadeeda way iska maqan tahay wadankii cirkii dhulkaba waa la iska soo galayay marka hadda hadii oo leadership soo baxo oo waxa lagu la dhaqanayaa habkii dadka kale ula dhaqan hadii ay shakhsiyad
oo leadership adag soo baxdo baarlamaanka isku xirmo xukuumad oo tayo leh oo maaragtay la dhiso oo isla markaas la diyaariyo nidaam oo arrimaha dibadda yani foreign affairs maaragtay nidaam habkii loola dhaqmi lahaa dowlooyinka jiiraanka iyo caalamka dhan marka siyaasad cusub bay soo bixi lahayd marka wixii oo xeebihii burcadbadeeda iyo arrimahan argagixisada iyo arrimahan kale oo international community faragelintan dhan marka laga yaabo in la xakameeyo oo new vision oo maaragtay la qaato marka taasna faa'iido ay u tahay taa aan ku noqdo waxaa muhiim ah in la kala saaro marka qofka la dooranayo iyo marka la doorto kadib maanaha marka la doorto kadib waxaa looga fadhiyaa waxyaabo badan inuu qabto laakiin waxyaabaha qaarkood hadda aan ka hadlayno waxaa muhiim ah intaana la dooran ka hor in uu qofku usii diyaarsan yihiin sababtoo ah in la dhisa baarlamaan in dowladda ay shaqeysa laftigeeda dadka doonaya Soomaaliya inaysan nabad noqon ama dowladaha ama shakhsiyaadka ama ururada waxay isku dayayaan in aanba marxaladda dambe la gaarinba oo macnaha waxay mixnad ku yihiin bilowgaba macnaha ama haas qabsadaan baarlamaanka dhexdiisa ama dowladdiisa caqabadaha markuu way badan yihiin marka qofka musharaxa waxa laga rabaa marka horeba subax la doorto kadib haddii la yiraahdo 11 kadib September in uu la yimaado barnaamijka uu ku xalin lahaa asagoo ka sii fikiray waa ay cid diidan Soomaaliya in ay nabad noqoto macnaha marka sida aad sheegtayba in kor loo qaado oo la yiraahdo amaanka kan ma aha waxaan ka hadlaynaa macnaha amaanka guud ee jiritaankeena ummadeena macnaha sababta caqabadaha mar walba imaanaya waxay ku xiran yihiin jiritaan la'aantaas marka xogaa waxa maraysaa dhankaas ilaa iyo maanan arkin musharax macnaha saa u faahfaahinaya Maxamed Cabdi Cumar amaanka gudaha oo kaliya ma ahna iyo Maxamed ka dhawaajiyo wuxuu u baahan yahay in fiiro dheer inay tahay laga yaabo aragtiyo kale oo faragelin kale iyo siyaasad kale oo dibadda ama ay tahay aysan ahayn oo kaliya al-shabaab iyo gudaha hoos ma la qabtaan iyo fikrad ka duwan baan qabaa horta rajada Ilaahay lagama quusto laakiin ballanqaadyada xagga nabadgelyada iyo ay ka hadleen nimankii musharaxiinta ahaa waa arrin horta aad u culus waxaan moodaa awoodda inay saarayaan ururkan la yiraahdo al-shabaab oo micnaheedu ay tahay haddii al-shabaab wadanka laga saaro inuu nabadgelyo ku soo arurahay anigu laakiin tahay midka culus baan arkaa oo ah sidii ciidan qaran maanta lagu heli lahaa Soomaaliya dhexdeeda way adagta it means waxa weeye dib u heshiisiin ayadoon la helin ciidan qaran oo maanta inta la dhisa awood yeesho oo sugu karaa sida lagu helaa waa jid process aad u dheer loo maro hadda xaqiiqada jirta Soomaaliya amaanka warqabnaba waxay ahayd ciidanka xataa damaanada Muqdisho lagu diyaariyay waa ciidan qabiil oo kala degan oo ciidan qaran oo isku kalsoon oo israaca oo meel u aadi kara maanta inay nabadeeyaan meena ahayn tan labaad arrintu inay sii fogaato waxaad ka arkaysaa waxa la keenay ciidan booliis ah oo loo qeybiyay booliisyadii shuruudaha iyo sababta loo keenay markii lagu sheegana laftirkeeda waxay ku gelinaysaa qalbi jab oo lagu leeyahay booliisku dadka ay soo xiraan yaa laga baqayaa in la sii daayo oo qabiil iyo magaciisa lagu sii daayo that's why musuqmaasuq lagu sii daayo that's why inaan u adeegsano ciidamadan ajnabiga ah inay ilaaliyaan hadda bal arag tan kale waa run sida walaalkay sheegay Maxamed waa wax jira waay dad ka soo horjeeda jira maanta inay nabad si degdeg ah Soomaaliya ugu dhalato aan jeclayn ama diidanba inay timaadaba marka waxyaalo badan marka dusha ka fiiriso kelmadda lagu dhawaaqayo musharaxu leeyahay waxaan sugahayaa nabadgelyada oo aan ka bilaabayaa shaqadayda iyo processka iyo xaaladda meesha ka jira markaad aragto aad bay u kala fogta because dadkii baa dib heshiisan horta u baahan inay is aaminaan oo isu soo noqdaan waxa taa isi dheer haddana waxaa lagu tala jiraa shaqooyinka ugu horeeya dawladdu qaban karta inay tahay dhisidda maamul goboleedyo taas oo lagu saleynayo inay qayb ka qaadan karta nabadgelyada oo la leeyahay reer walba gobolka uu degan yahay iyaga ciidanka ha qoraan iyagu ciidan ha samaystaan iyagu ciidanka ha diyaariyaan ciidamada marka meelaha lagu diyaariyaa si hadhowd ciidan qaran u noqon karaan oo isugu imaan karaan oo dowlad central ugu wada shaqeynayaan that's the question haddana meesha imaan karta hadda kuma jirto ayagu in ciidan qaran oo Soomaaliyeed oo si toos loo abuuro oo caasimada iyo la keeno oo lagu wareejiyo nabadgelyada iyo ciidamada in la heli karo way Maxamed hadalkiisna ku soo laabto baaritaan haddii la sameeyo baaritaan furan oo aragti dheer ah yay tahay cid caqabad ku horta nabad su'aasha hadii la isweydiiyo maxaa ku jawaabay anigu hadda specific qof aan oran karo qofkaas iyo reerkaas ama agency-gaas diidan ma jirto oo hadda wax banaanka yaala ma aha ururo samaysan maanta awood u leh dawladda laakiin ma tahay la isweydiiyo
وسفي عنها وواح ماشي كتيرو حسن والله مشاريعين تقار مركي أي خطبة الجيرينيين وحكو جرتي قار إن يرادين إن وحن صار إن كوميشن هام بارا دبعتدن هذا الصومالي كل عذاي حالة دندن إن دب لوجن نقطة وحن مشكلة ما واسكو حرنتها بربركي وحن دان ومشكلة أدودر مر ماركتي قبيل مرتي هجامي كوحد دين أسوب الدشي أساس عتولي مركو حلو باهنيا هي هذا حكومة إيمانيس إن كوميشن أي صارتو كوميشن كاس لقى صوب الله فروم مركو حرية لقاضي أنت دحضوض وحي دعاي dib loogu noqdo oo la yiraahdo dhibaatada ma waxay ka imaatay qabiil ma waxay ka imaatay nidaamkii markaas jiray garsoorkii iyo cadaaladii iyo qawaaniintii loo hoggaansan waayay constitutionkii laga tagay ma arrimo ajnabi oo faragelin dawlooyin kale ku imaatay wixii waa in maaragtay dib loogu noqdo ilaa hadda intaas oo sano ilaa hadda waxa oo commission loo saaray oo qoraal laga soo qoray ma jirto marka I think in habkaas loo xaliyo wixii ka soo baxana laakiin taa waxay leedahay way fiican tahay laakiin fursadda ayaa ku sugaya macna commission inta uu cilmi baaris sameeyo uu recommendation sameeyo manaha inta marka qarankiisu ku shaqeynaa marka su'aasha u baahan macna musharaxiinta annaga aan ka filayna noo sharxan waxay tahay laftigeeda stage-kaas sida lagu gaari lahaa ilaan ma dhihi karno commission inta wax soo baara kadib aan sugaynaa 2 sano ama 1 sano inta qaato tala ka soo bixi markaasaan wixii ay noo sheegaan ayaan dawladda ku fulinaynaa de musharaxiinta kama sugayno musharaxiinta waxaan ka sugaynaa berri subax 11 September markuu xukunka fadhiisto sidii dawladdiisa ay ku shaqeyn lahayd way intaas daan amaanka ku dhaafo waxaan u gudbaynaa marka xiriirka caalamiga musharaxiin badan waxay ka dhawaajiyeen in kuwii hore usoo shaqeeyay inay suurto geliyeen in indhaha caalamka Soomaaliya maanta ay eegaan oo 20 sano laga yaabo in la iska indhatiraayo laakiin isha lagu wada hayo waa muhiim Soomaaliya meesha ay ku taalo marka loo fiiriyo qaarad ahaan xuduudada ay leedahay oo Asia Africa iyo wadamada kale oo siyaasadda ay la wadaagto musharaxa soo sharxay haddii siyaasadiisa loo fiiriyo maxay tahay waxa looga baahan yahay xiriirka caalamiga sidii Soomaaliya looga qayb qaadan dejinteeda iyo ka shaqaynteeda nidaam ahaan xiriirka caalamiga waxaad u malaysaa meelaha aan ugu liidan Soomaaliya hadaan nahay ayay tahay xiriirka caalamiga wax kale ma waa in diblomaasiyiinta ay abuuraan saaxiibo Soomaaliya danaheeda ay la qabsato waan meelaha aan ugu liidano hadaysa ahaanba meesha ugu liidato ay marka waa meesha u baahan xanuunka faraha badan ee Soomaaliya ku jirto hadda waxaan la leeyahay bulshada caalamka fiirisay ma dadaal iyo saaxiibtinimo aan kasbanay oo aan ku soo jeedinay caalamka maana wadi markaan runta sheegayno ma dadaal ay Soomaaliya inta samaystay ay saaxiibo kasbatay saaxiibadii ay daneeyeen ay yiraahdeen macnaha Soomaaliya wax la qaban ma laakiin waa mid ay ku faanayaan madaxdii dawladda kamid ah ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ay kamid ahaayeen leeyihiin waxaan kasbanay in caalamku maanta ay arintan Soomaaliya ay u soo jeestaan ما الدلال ويس سمين ولا ما الحقيرية إن الدلالين الدولة أي شقيسة إلا حتى لما حقيرية لكن معناها ساحبة النظام أنت الصومالي حيسا وحكمتها هي حرير كرمه دي بدأ أوليت أي كمتها ما أنا هو واحد حد السنة هذا وده ما شنت سنة هذا وده بيجري ووقت متبادل سوجي تبي ومركب وحيابها عن أبا هنا إن عن أبورنا صاحبة الصوماليات إيو دبلوماسيين كاريكرا إن دناها صومالي كجدا برشة عالمك marka waa meelaha aan ugu liidanay kamid tahay laakiin waxaan hadda caalamku ugu soo jeestay runtii macnaha September 11 markay dhacdo kadib ayay Soomaaliya ay noqotay meel lagu soo jeedo macluulaha iyo dhibaatooyin ka dhacaan waxay noqotay meelaha arrimaha Soomaaliya lagu soo jeedo burcadbadeedka waxay kamid tahay meelaha Soomaaliya lagu soo jeedo marka ma dhihi karno dawladda macnaha bulshada caalamka ku soo jeeda macnaha xogaa isku maan xiri karno laakiin in ay dawladda dadaashay oo intii ay kari karto marka inay kareen duruufaha jira ayadoo la fiirinayo way jirtaa laakiinse annaga in aan kasbano Soomaaliya hadda markaad fiiriso bulshada caalam wadamada jiro dhan wadan walba waxay leeyihiin saaxiibo wadanooda ka fushtaan hadda macnaha hadii anaga waxaan ku jirnaa jaamacadda carabta waxaan ku jirnaa wadamada islaamka macnaha kumaana leeyihiin macnaha saaxiibo badan oo aan maslaxadeena ka gadi karno ama maslaxadeena aan kala tashan karno kumaana leeyihiin
soo marka waxyaabo u baahan waa in wax laga qabto. xasan marka xildhibaanka Soomaaliga fikir ahaantiisa uu ku diiradda saaro musharaxi soo sharxay xiriirka caalamiga waxyaabaha looga baahan yahay in uu ka shaqeeyo oo loo rabo in loo eego ama uu khibrad u leeyahay maxaa kamid ah wada shaqayntii nidaamkii caalamiga ah waxyaabo looga baahan yahay in musharaxu aqoon u leeyahay oo xildhibaanadu ay fiiriyaan ay tahay waxaa la dhihi karaa waa kamid ah wallaahi tan waxay la xiriirtaa aqoontii aragtidii oo visionkii dheeraa oo aragtidii dheeraad aan sheegaynay kolley musharaxiintan kolley isku mid ma ah marka waxaa loo baahan yahay shakhsiyad macluumaad fara badan ka hays international relations calaaqaadka dawliga calaaqaadka dawliga waa muhim waana loo baahan yahay hadda waa muddadii fursadii ugu fiicneed waa la joogaa waa sidii walaalkay ka dhawaajiyay waxyaabaha maaragtay oo caalamka usoo farageliyey arrimo kale fara badan baa iska jiray oo fail state bay iska ahayd Soomaali dhibaato argagixiso ah burcadbadeed waxyaabahan dhan caalamku way soo jiideen way soo jiiteen marka isla markaasna waxay bilaabeen inay wax ka qabtaan sababtoo doominkii banayay maraakibtii badii iyo waxan baa maartay trade-kii wixii baa dhibaato gaaray marka waxa loo baahan yahay shakhsiyad oo xiriirkii caalamiga dhaqso sameyn karto safaaradihii Soomaaliya ay dib u bilaabi karto waxaan ognahay dawladii hore dawlad ku meel gaar ay ahayd ku meel gaarnimadii hadda waa laga baxay waa inkastoo 4 sano kadib doorasho kale la galayo waa dawlad buuxda marka waxa loo baahan yahay calaaqaadka iyo saaxiibtinimadii hadda la sheegay waa in hadda la gudagala taasna waxay ku xiran tahay madaxweynaha hadda la dooranayo iyo prime minister-ga la dooran doono say caalamku u arkaan muhiim ma tahay marka inay soo bandhigaan shaqadooda ku aadan xiriir arrinkaas arrintaas waa loo baahan yahay arrintaas waxay noogu isku xirka caalamka arrintaas waa waxa way waa markii la dhiso xukuumadda shaqadeeda way markii oo wasiirka koowaad la magacaabo golaha wasiirada waa in barnaamijkii oo arrimaha dibadda ay soo diyaariyaan habkii ay يعني laakiin qofkii musharaxa ahaa aragtidiisa iyo aqoontiisa ma loo eegayaa inuu ku wanaagsan yahay hawshaas iyo in barnaamijkiisa ay ku jirto oo qabadkiisa kulli khudbadooda way ku jirtay kulli intaan hadda dhageystay waxa way arrimaha dibadda waa muhiim waa aad iyo aad ba looga baahan yahay laakiin arrintii oo la sheegay yaa fulin karaa way shakhsiyada loo baahan yahay arrintaas aragti u leh fulin karto oo isla markaasna caalamka soo jeedin doonto hadda waxaan ognahay dawlooyin ay kamid yihiin Turkiga oo kale in hadda Soomaaliya hadda saaxiib la tahay oo waxyaabo badan Uganda oo kale sidii dawlooyin oo hadda oo Soomaaliya ciidamo ka joogo saaxiib la waxaan dhan waa jiraan marka waxa loo baahan yahay in xiriir wanaagsan la yeesho caalamka muddo yar oo laga kaaftoomaado yani ciidamada shisheeyada oo waddanka jooga way wax ku darsado marka arrinta yarta topiga inta ka bixin Soomaaliya horta waddan dayacan buu ah muddo 22 sano ah xiriirka hadda u dhashay Soomaaliya iyo international community-ga caalamkuna wuxuu ahaa mid ay keentay inay noo arkaan khatar annaga khatartaas oo laba dhinac noqotay mid burcadbadeed ka samaysantay iyo mid xagjirnimo ah oo ay wadaadadii iyo alqaacidadii iyo systemka ay ka cararahayeen oo adduunka la dirirahayeen baa hadda ka abuurmay baa liir Soomaaliya anuu ma qabo marka mas'uuliyiinta shala ka hadlay oo ku faanahayay inay soo jeediyeen adduunka international community-ga khatarteena soo jeedisay ma ogiyay system ayagu iyo nidaam ay u sameysteen international community ku keenan ma jirto laakiin qaar kamid ah dawladda ragga ka soo shaqeeyay qodbadooda waxa ku jira inay ku guuleysteen inay adduunka maaragtay maanta la shaqeeyaan oo dawladooda ay sababtay waxaan u arkaa international community-ga ayaaba u arkayba khatartaas uga hortago inuu dawlad nidaamku meel gaar leeyahay u samaysto jidka u mar lahaa ay noqoto waana waxa uu hadda ku guuleystay dagaalka uu hadda ku jiro oo ay u fududeeyaan systemkii looga hortagi lahaa
laakiin anigu hadda ma qabo inuu system ayagu ay abuureen oo dowladda international community ay ku keeneen oo ay yiraahdeen dhibaataan haystaan loo soo jeesto adduunka hana la tuso way ku yartaa arrintaas aan filayaa meesha waa maxay qorshaha la rabo ama lagu dooran karo ama looga fadhiyo qofka xiriirka caalamiga ah qofkii musharaxaha xiriirka caalamiga ah qorshaha laga rabo ama looga baahan yahay in looga fadhiyo inay caddeeyaan ay tahay runtii hadda macnaha 20 daqiiqo qofka markuu haysto waa fahmi kartaa inaysan jirin fursad badan oo wixii ku sharxo faahfaahin badan uu ka siiyo laakiin waxa muhiim ah macnaha asaga shakhsi ahaan qofka inuu fahamsan yahay siyaasadda caalamka horta sida uu shaqeyso waa muhiim macnaha awoodda jirta iyo sida uu shaqeysa labo caalamkii hadda globalized uu noqday ama hal adduun isku furan uu noqday in adduunka adiga oo aan lagu ogolayn inaad istaagto adiga oo lagu ogolayn inaad hormarto adigoo macnaha dad badan ay masraxada ka leeyihiin ay rabaan inay kugu fisha ku isticmaalaan sidee aad u awoodi kartaa wadankan xaradan aad ku jiro aad kaga saartaa mana waa qof skill-kaas xirfadaas leh waa inuu noqdo qofka aan rabnay inuu noqdo hogaamiyaheena marka ma aha barnaamij fara badan ee hadda ay soo gudbiyeen ama waxaa laga yaabaa 3-4 sadar in mid walba ay ku jirtay oo in xiriirka caalamka uu ka shaqeynayay inuu macnaha safaaradii Soomaaliya furay laakiin laftigeeda macnaha waxa ka horeeyo macnaha muhiim ah inaan fahamsanahay saaxiibadeena iyo cadawgeena asalaam markaasna aan fahamsanahay macnaha sidee macnaha duruuftan adag iyo macnaha waagi hore waan fahmi karnaa bidixii midig baa jirtay ama macnaha Soviyetka iyo Mareykanka laba dhinac macnaha way fududeed xisaabtan la fahmay laakiin hadda sidii hore uma fududo marka qof fahmi kara duruufahan jira ee cusub xaaladda fahmi kara isla markaasna maslaxadeena ayadoo meel qatar ku jirto ka soo dhax saari karo asagoon ka xanaajin dadka naga soo horjeedo way marka waxaan leexanay xagga dhaqaalaha xasan waxa jira qodbooyinka waxa ku jiray in la isku haysto dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha ay ka soo baxaan wadanka cashuuraadka oo kale sida dekada laboorka iyo maamulkii sida dhaqaalahaas loo maamul lahaa wasaaradda maaliyadda qaar kamid ah madaxda waxa lagu soo yeeday in si qalad ah loo isticmaalay oo musuqmaasuq ku jiro qaarkood waxay leeyihiin sida uu ka dhawaajiyay musharax kamid ah musharaxiinta inuu qasnada kaga tagay lacag badan laakiin dadka qaar ayagana kuwa kale leeyihiin waxba kuma arkin marka habka maareynta dhaqaalaha musharaxii aqoonta laga rabo waxay tahay ama looga baahan yahay in ay u eegaan xildhibaanada aqoonta kolley oo dhaqaalaha oo kale waa dad ku takhasusay dhaqaalaha oo ku takhasusay habkii loo maareyn lahaa waa la helay oo Soomaaliya waxa muhiim ah marka dhaqaalihii la helay habkii loo maamuli lahaa inay ku jirin waxa la yiraahdo musuqmaasuq waa in dhaqaalihii la helay meeshii looga tirigalay la mariyo dhaqaalahaasna ma aragtay la qoro oo la sheego sanadkii dhamaadkiisa mise 3 baarlamaanka la horgeeyo miisaaniyadii dawladda waatas miisaaniyada militariga intaas ku baxaysa educationka intaas ku baxaysa ishaag jidadkii intaas ku baxay isbitaaladii wixii dhan in la diyaariyo marka miisaaniyadii la geeyay baarlamaanka la ansixiyay waa in habkii ay ahayd looga dhaqma oo loo hirgeliya marka dhibaatada waxay ka imaanaysaa dhaqaalahan oo soo galaya mas'uuliyiin haddii dhaqaalahaas gelin khasnada dawlad oo bangiga dhaxa oo la geynin laga yaabo jidkii inay ku lunto marka musuqmaasuqani waxaan la sheegay meeshay ka soo baxaysa laga yaabo madaxweynaha ahaado wasiir ha ahaado in ziyaaro wadan kale u tago oo lacag la soo siiyo lacagta la soo siiyo waxa lagu soo qaaday lacagtaas magaca shacab lacagtaas waxa la rabaa marka la keeno waa inay gashaa bangiga wixii u baahan yihiin mas'uuliyiinta oo xafiiskooda iyo shaqadooda ku qabsan karaan waa inay si rasmi ay ugu soo qaataan ay u isticmaalaan marka haddii oo wixii dhan on books laga dhigo isla markaasna miisaaniyada habkii loogu tirigalay loo isticmaalo marka dakhligii soo galay laga yaabo waxyaabo badan in lagu qaban karo laakiin haddii loo isticmaalin marka waxaa dhacaysa dhaqaalo badan inuu meesha ku baxo dadkii kale hataa oo isticmaalay mas'uuliyiinta inkastoo ayadoo niyif wanaagsan hataa isticmaalay markii lacagtaas ay meesha ay ku bixinayaan
maadaama oo rikoorkii la gelinin waxay noqonaysaa lacagtaas marka lacag luntay oo musuqmaasuq ku baxday. maxamed waa meesha ugu muranka badan oo uu ka jiro maareynta dhaqaalaha. dowladdii soo sharaxaysay ma tahay inay la timaado qorshe cad oo ay doonayso inay ku maamusho markay qabato xukuumadda ama qofkiisa soo sharxay? run ahaantii way tahay qaybtan hadda maaliyadda ama dhaqaalaha aanu ka hadlayno waxa weeye waa qayb aad iyo aad xasaasi u ah marka maamulka loo fiiriyo. waa qayb u baahan ilaalin xad dhaaf in loo sameeyo oo dadka lagu wacyigeliyo dhaqaalaha inta u yaalla iyo in wax loogu qabanayo. taasna waxaa xakameyn doona waa hadda sidaan anigu qabo baarlamaanku inuu sameeyaan guddi joogto ah oo kormeer ku haya dhaqaalaha waddanka soo galaya inta bangiga u taala systemka loo isticmaalayo waana sida loo ogyahay ama loogu talagalay baarlamaan kastaba inuu soo bandhigo budgetka dawladda ugu talagashay inay isticmaasho. laakiin waxaan qabaa wax badan inay iska bedeli doonaan systemkii hore iyo systemka. sababta wax walba waxa lagu salayn doonaa dastuurkuna way ku qorneyd baan u maleynayaa qodobo ay kaga hadlayaan sida loo dhaqan gelinayo qaybta dhaqaalaha. hadda baarlamaan waa loo sameeyay guddi xirfad u leh oo dhaqaaliyahan ah oo yaqaana systemkaas iyo bangiyada iyo maamulka oo isla xiriiro wada shaqeeya. waxaan qabaa wax badan baa iska bedeli kara sida dhaqaalaha loo maareyn lahaa Soomaaliya. runtii qodob waa xasan uu ka hadlay horta muhiim ah waa leadership maanaha hoggaan xalaal ah oo habboon haddii uu yimaado karti leh maanaha dhaqaalaha uu iska bedelayaa. okay taas waa midda guud. haddii marka dhaqaalaha laga hadlo dhaqaalihii waxaad u malaysaa dadkii dhan in ay culays ka saareen maanaha musuqmaasuqa iyo maareyntii dhaqaalaha. waxaa horta muhiim ah laftigeeda abuuristii dhaqaalaha. waxaad u malaysaa dhaqaalaha marka laga hadlo in laga hadlo canshuurta laga qaaday airportka dekada dee waddan kuma shaqeyn karo canshuur dekadii airport laga qaado keliya qaran kuma shaqeyn karo. marka horta waxaa muhiim ah in ilaahay dhaqaalaha oo dhan laga fikiro sidii loo soo nooleyn lahaa. isla markaasna midda uu walaalka maxamed oo ah in la helo dad aqoon-yahano ah oo maanaha National Economic Advisors Board la sameeyo oo ka tala bixiyo maana waddankan sidii dib maana muhiim ah ninka madaxda noqonaya inuu maado walba yaqaan muhiim ah mana aqoon karaba. laakiin waxaa muhiim ah in dad aqoon-yahano ah oo dhaqaalaha bartay gaar ahaan dhaqaalaha sida loo kabo wadamada saddexaad loo soo nooleeyo bartay in la abuuro la sameeyo dan markaa ayaga ay ka tala bixiyaan sidii kaabayaasha dhaqaalaha loo soo celin lahaa sidii dhaqaalaha iyo qayb kamid ay noqonaysaa marka maareynta dhaqaalaha oo musuqmaasuqa uu soo isgalayo. laakiin haddii mar walba dhaqaalaha laga hadlo keliya laga hadlo musuqmaasuqa dee horta waxaa muhiim ah ayadana muhiim ah in laga fikiro sidee horta dhaqaalo lagu abuuraa. sababtoo waxaad u malaysaa 5 milyan iyo 6 milyan oo la xaday 5 milyan 6 milyan soo aroortay keliya te qaran kuma shaqeyn karo. maanaha dowladdii waxaa looga baahan yahay adeeg. haddii dowladdana adeeg ma sameyn karto haddii ayna dhaqaalo abuurin. marka ma tahay musharaxii in ay ku jirto qorshihiisa oo cad qaabkii uu dhaqaalo ku abuuri lahaa inuu soo bandhigo marka si ayna tahayna qodob muhiim ah in baarlamaanku markuu codeynayo codkiisa bixinayo inuu u eego qofkaasi ama musharaxaasi inuu yahay qof u soo jeeda abuurista dhaqaalaha iyo kor u qaadistiisa? waa muhiim haddii aragtida uu ka qabo dhaqaalaha mar walba waa muhiim maanaha sida ay la mid tahay arrinta uu ka qabo ammaanka arrinta uu ka qabo xiriirka caalami maanaha waxaas oo dhan waa muhiim. laakiin maanaha qofka lagama filaya asaga markaa inuu yahay maanaha economist oo ka jawaabi kara su-aal walba. laakiin waxaa muhiim ah in uu aaminsan yahay maanaha in abuuritaankii dhaqaalaha kaabayaashii soo nooleynta dhaqaalaha maareyntii dhaqaalaha maanaha waxaas oo barnaamij ah. maxamed maxamed qaybtan waxaan ku eegaynaa dhaqaalihii iyo abuuristii ilaha dhaqaalaha xagga tiknolojiyada. adduunku wuxuu ku kala socdaa xagga dhaqaalaha abuuristiisa waxyaabaha casriga ugu cusub waxa weeyaan xagga tiknolojiyada. Soomaaliya inta badan aad u liidata xagga isticmaalka internetka waxa loo yiraahdo. badda Soomaaliya waxa yaala tubadii ahayd oo ilayska ku shaqeynaysa dheereysay xoog badneed fiber optic. waxaa jira caqabado badan oo hortaagan in la soo qaado oo la soo gaarsiiyo adeegyadii lagu abuuri lahaa dhaqaalaha oo wadankii uu ku wada shaqeyn lahaa sida jaamacadaha meelaha dhaqaaluhu uu ka baxo uu ku kala socon lahaa umalayso inay tahay culays weyn oo Soomaaliya saaran. waxaana jira shirkado badan oo arrinta isku hirdiya in tubada la suro oo wadanka loo qaybiyo ilayskaas dheereeya oo internet ku shaqeeya. ma tahay in arrinkaasi muhiim ay tahay dawladda soo socotay mashruuc soo socday inay ka shaqeeyaan ama ay ku jirto qorshahooda baarlamaankuna uu arrinta ku eegay inuu qofka codka ku siiyo? run ahaantii horta waa qodob aad u muhiim ah. 22 sano unbuu wadanka dib u dhac adduunka ka haray xagga tiknoolajiyada marka loo fiiriyo. haddana waxaan nahay dad u samaysan
inay si dhaqso leh integrated ugu sameeyaan waxyaalaha markaa adduunka ka soconayo 2011kii waxaa la sameeyey fursad loogu danaynhayo Africa iyo qayb ka mid ah qaaradaha Aasiya shirkada ayaa isu xil saaray iyagoo dantooda fiirsanaya inay mariyaan xarigan dheer la yiraahdo fiber optic oo wadamo badan oo adduunka badan hadda aysan haysanin waana fursad dhaqso badan oo maaragtay u fududeynaysa qofkii sidoo international relationshipkiisa iyo xiriirka adduunyada iyo internetka iyo dhaqaalaha iyo wax walbaba oo kula xiriir lahaa fursad aad u weyn baan u qabnaa horta run ahaantii xeebteena daadsantaa hadda dad maqashay waan filahayaa xeebta Soomaaliya ayay meelaha ugu sharciyan maxay tahay wax looga baahan yahay dawladdaas inay qabato si hawshaas loo soo saaro waxay tahay maadaama wadankii hadda ka soo baxay meel aad u hooseysa la rabana hadda in systemkii laga gaarsiiyo dawladnimo iyo isticmaalka kombiyuutarada iyo dhaqaalaha iyo bangiyada laga maarmi maayo in xoog ugu horeysa ay dawladdu saartay inay tahay sida ay ku abuur lahayd systemkaas waxaa imaan doona tiknoolajiyada hadda casriga aad buu horumaray bangiyada intooda badan waxaa ka shaqeeya wada aragtay qalabkan tiknoolajiyada ah ee casriga hadda soo baxay wadamada Yurub dhibaato badan bay ku qabaan because dad badan baa shaqada u lumiyay qalabkii baa qabanaya shaqada dadka ay qaban lahaayeen haddana wixii baa la sii casriyeeyo ka sii baxay xadkii loogu talagalay aad bay isugu xirnaan doonaan marka howlaan hadda aan ku hadlayno xagga dhaqaalaha horumarinta hay'adaha jaamacadaha hadday noqoto systemka ama communicationka telefoonada dawladda ama xafiisyada dawladda ama hadday noqoto internationalka aad bay Soomaaliya muhiim u noqon doontaa in arrinta xoog la saaro waxyaalaha ugu horeysa ee horumarka qodda soo gaarsiin kara oo communicationka abuuri kara oo shaqada u fududeyn kara inay noqon doonto arrintaas socota mid taa aniga ka duwan ayaan qabaa manaha horta dawladdan aan fahamno waa dawlad ku meel gaar ah laftigeeda manaha ha noqoto dawlad joogta laakiin dastuurka ay ku shaqeynaysa laftigeeda wuxuu yahay dastuur ku meel gaar ah marka dastuurka ayaa horta muhiim ah inay ansixiso okay arrinta ka hadasho waa fiican tahay laakiin dawladdan ma tahay muhiimadda ugu koowaad aniga waxaan qabaa maya sababtoo Soomaaliya marka la yiraahdo UNESCO waxay ku qiyaastaa 80% Soomaaliya dadka Soomaaliya jooga gudahooda inaan waxna qori karin waxna akhrin karin hadduu fiirso 80% waxa lagu qiyaasaa inaan waxna akhrin karin marka dadka Soomaalida ah ee aan waxna qori karin waxna akhrin karin laakiin tirada sax ma sida ay sheegto tusaalahan mana akhrin la'aanta waa ku badan tahay Soomaaliya sida ay sheegto kaba soo qaatataa haddii ay ka yartaataa numberka laakiin 70 60 ay tahay laftigeeda mana dadka Soomaaliya waxay u baahan yihiin marka hore in literacy-ga laga caawiyo inay waxna qori karaan waxna akhrin karaan okay inta markaan fiirino waxna qori karto waxna akhrin karto computer heli kara internet heli kara koronto heli karta markaad fiiriso Soomaaliya statistically numberka aad u yar yahay marka haddii aan dawladda ay tiraahdo inta yar man u adeegaya oo ma fiirinayo macnaha dadka badan ee aan waxna qori karin waxna akhrin karin ee wadanka joogo mana dawladda laftigeeda waxay u baahan tahay priority-gooda inay noqoto midda dadka badan oo u adeegayso inay noqoto marka arrinta internetka waa fiican tahay laakiin dawladdan ma filayo inay noqon waxaan ka hadlaynay abuurista ilo dhaqaale dhaqaaluhuna wuxuu ku yimaadaa sida caadiga hadda ku shaqeynta tiknoolajiyada bangiyada iyo ganacsiga iyo arrimihii kale la xiriiray waxbarashada aqoonta adduunka sida loo kala qaato cilmiga muusan ahayn muhiim in si dhaqaalaha loo kabciyo qayb weyn ka ahayn tiknoolajiyada manaha annaga waxaan la yidhaha knowledge based economy maanan gaarin maanaha Soomaaliya waa wadan hadda la rabo in la soo nooleeyo haddii aan dhahno waxaan ku tartamaynaa electronic ku tartamaynaa oo dhaqaalaha caalamka ka qayb galayna dee laftigeeda waxaad u malaysaa maanaha waa tallaabo aan la gaari karin horta waxaan u baahanahay inaan cagaheena dhigno oo ah basic economy maanaha ka soo bilaawno beerihii kalluumaysigii maanaha waxyaabahaas asaaska inaan ka soo bilaawno laakiin kumaana tartami karno maanaha shaqooyinka caalamiga ee marketka ee knowledge based economy sababtoo mid kale dadkii aqoonta ku lahaa ma haysid maanaha maxaad ku tartantaa waataan kuu sheegay dadku waxna ma qori karaan waxna ma akhrin karaan koronto ma haystaan computer ma haystaan internet ma haystaan intaa wada heli karta Soomaaliya joogta ee aqoonta leh ee numberka leh maanaha aad u yar yihiin marka haddii ay tira dawladda dhaqaalaha halkaas ka bilaabaya maana totally macna waxa u malaysaa xasan waxa ka aaminsantahay maxamed wallahi waxaan dhihi lahaa ani maadaama wadankii intaas oo sano dhibaato ku jiray literacy yani aqoon la'aanta tacliin la'aanta iskuul la'aanta arrintan aad iyo aad ay u soo socotay dadkii aan fursad u helin technology waa loo baahan yahay laakiin hadda xilliga hadda la joogo waxa way priority-ga loo baahan yahay ma galaysa arrintaas waa ani waxa malaynaa waa loo baahan yahay laakiin priority-gi ma
priority-ga hadda loo baahan yahay horta dadkii inay ammaan helaan oo ummadda hadda lagu tala jira waxaa loo baahan yahay dadkii in degaankooda ay ku noqon karaan xoolahooda ay dhaqan karaan beelahooda ay falan karaan ma garatay waxaa loo baahan yahay iskuulaadkii in la furo dadkii cilmiga yani si qoraalkii loo qora wixii la baro technologyadii la baro marka waxay ku qaadanaya wixii dhan in laisku hagaajiyo systemkii governance-ga naftiis in la hagaajiyo dadkii markay wacyigelin loo sameeyo technologyadii marka ilihii dhaqaalaha kulley infrastructure-ka kale aada uga badan had wadankii dib in loo dhiso jidadkii boodadii maaragtay guryihii dadkii maaragtay hantidii dowladda oo la burburiyey waxaan dhan dhismay u baahan yihiin in dib loo soo dhiso waxaas dhan marka waxaa waaye ilo dhaqaale ilo shaqo la-aanta kolley waad la socotaan meeshii intaasoo dhalinyaro oo hadda joogto oo hadda shaqo haysanin baa jira marka waxyaabahan dhan kalluunka waa badda in laga faa'iidaysto kalluunka waxyaabahaas oo kale marka waxaan dhihi lahaa waxaas dhan in hadda dhaqso looga faa'iidaysto point ah run ahaantii waa run horta meesha badeeni nabadgelyahan hadda su-aasha wiilku weydii socoto waxay ahayd kumuu salaynin haddii hadda miyaa la bilaabi karaa because nabadgelya haddaysa jirin buu horta wax la qaban kara aragtida dheer aanu ka hadlayna yaanu ka hadlayna waxaa jira dowlado badan oo aada u daneeya cilmiga information technology-ga ama farsamada hadda casriga adduunku gaaray wadamo badan oo barbos hadda hor soo jeediyay baa kamid ahaa oo hadda arrintan aan ka hadlayno fiber optic Soomaaliya la mariyay qorshaha ku darsaday baa jira dowladaha marka hadda ugu hor ugu maray technology-da inta maanta ku yimaadaan ku yiraahdo waxaan rabnaa inaan ka dhisno systemka information technology-ga oo ku sahlaya adeega bulshada hadii lagu yiraahdo ma doonayna hadda hanal si bariisi waxaan u baahnaa kalluun miyaan oran karnaa fursadaas hadday noo bandhigaan oo kale for example aan ka hadlahay waa qaadanaysaa hadda Japan baa soo jeedisay dowlado badan ayaa soo jeeday Korea kamid ahayd dowlado badan baa markii systemkan iyo arrintan loo fudeeyay Soomaaliya oo fiber optic loo mariyay ka war helay ku dadaalay oo raadiyay in dowladaha wadamadaas hadda fursada u helay ay gacanta ku dhigaan maadaama information technology-gooda horumaray haddii marka adigu wixii aan laga gadin oo lagu yiraahdo annaga fursadii hadda ku sameeynayna oo deeq baan kaaga dhigaynaa ma waxaan leenahay bariisi waxa loo baahan yahay baaste bal horta noo soo hormariyo naga daayo hawsha maxamed waa run waa taabale waxa leeyahay intaad fiber optic idigi leeyahay iskuulan u baahanahay dadkayga geela raaca dadkayga qaxootiga ee xiriyaha qaxootiga ku jiro ayaa u baahan iskuul inay u dhigtaan waxna qori karaan waxna akhri karaan sababta qofka maana markaan ka hadlayno ninkan fiber optic haduu ii soo dhigo de imisa Soomaali maanta fiber optic ka faa'iideysan karto markaad u garab dhigto 1 milyan qaxooti ku dhax xiriyaha qaxootiga xamar nawaaxigeeda hadba habeen meel u guureeyay cunugan warigiisa meelna iskuulna dhigan iskuulna macnaha fadhiisan kaamiya u baahan in wax la baro oo sida wax loo qori wax la akhriyo hooyada daawada akhrisan karta la siiyo laakiin waxa ka hadalnay waxbarashadii laftirkeeda waxay ku jirtaa hadda marka la fiiriyo adduunka jaamacadaha oo kale wax lagu bartaa qaabkan technology-da lagu bartaa haddii aysan jirin wax ku sahlaya marka oo fududeynaya in cilmiga qofka meesha uu joogo ugu geyso miyaan ahayn fursad loo baahan yahay in la sameeyo haddii la sameyn karo aqoonta laftirkeeda ka qayb qaadanaysa sababta hadda aan fiirino online ba wax lagu dhigtaa casharada la qaadanayo journaalada la akhrinayo maadooyinka la akhrinayo kulli waxay ku wada jiraan xagga safarka iyo internetka ay ku wada jiraan laga faa'iideysto aniga waxaan ka hadlayaa qofka maanta xamar joogo ama balcad joogo ama Kismaayo joogo macnaha joogo tuulooyin kamid ah Soomaaliya laakiin dowladdan aan ka hadlaynaa iyo xilligan aan ka hadlaynaa joogo waxa muhiim u ah inuu marka hore si amaanka la sheego macnaha den markaas kadib basic waxyaabihii asaaska ahaa in la sameeyo kuwaas muhiim u ah mooyaane in dowladdan tabarteeda ma aha macnaha baahideeda waa inay taqaan dowladda laakiin haddii dowladda la yiraahdo wax kasta oo aan ku siin iska qaado laftigeeda macnaha waxa dowladda inaan garin wax u baahan tahay waa gartay waxaan soo laabanayna adeegii bulshada markii musharaxiin badan baa ku celceliyay oo kulligood inta badan ay ka wada hadleen inay ka wada shaqeynayaan ay ku dadaalayaan wax ugu horeeya qabanayaan ay kamid tahay marka ammaanka iyo dhaqaalaha la sugo adeegii bulshada adeegii bulshada ay kamid tahay isbitaaladii iskuulkii wadooyinkii bulaacadihii nolosha caadiga ahayd kamid tahay marka aragti ahaan qofka noqonaya musharaxa inuu soo bandhigo barnaamijkiisa ku aadan adeegga bulshada waxa la ku wanaagsan in laga eego oo lagu si loo siiyo codka ama xildhibaankii codka ku siin karo maxay tahay waxa uu ka eegi karo runtii macnaha dawladda sideeda laba shay ay sharciyan ku heshaa marka hore waa amaankii sharciga inay dhowrto marka labaad waa inay dadka adeeg bulsho u qabato haddii kamid ah adeegyadii bulshada macnaha waxbarashada caafimaadka waxyaabaha dawladda
social service waxaan la yiraahdo waa inay dowladda dadka u qabato marka ay waxay dareemayaan dowladda dadka inay dadka dowladdan ay ayaga leeyihiin haddii aanay marka adeegaas ay dowladda aanay qaban dee dadka ma dareemayaan waxa ay qabtaan lacagta laga qaaday canshuurta laga qaaday iyo waxaan dowladnimada laftigeeda dee idaacadaha bay ka maqlaan mooyaane wax ayaga quseey ma marka si loo kasbado dowladdu way ku qasban tahay kow ammaanka inay sugto oo sharciga ay ilaaliso kadibna ay dadkii adeega muhiimada musharax inuu la yimaado qorshihiisa adeega bulshada ugu talagalay waa qasab macnaha waxay la mid tahay qorshooyinka kale oo kale ee la mid tahay laakiin adeega bulshada laftigeeda macnaha wuxuu ku xiran yahay wax badan ammaanka iyo dhaqaalaha macnaha dowlad macnaha beri subax ma awoodi karto waa soo hadalnaa ammaanka waa soo hadalnaa dhaqaalaha waa soo hadalnaa laakiin muhiim ma tahay in qofkii musharaxa uu la yimaado qorshihiisa adeegii bulshada u qaban lahaa markii dhaqaalaha iyo ammaanka laga soo taxo waa qasab كل أنا waxaan dhihi lahaa musharaxiinta way hadleen xildhibaanadu waa inay fiiriyaan horta waxay ku hadleen ma lahaya ama qoran yihiin sababtoo shakhsigii maanta kusoo hor istaagay hadlay wixii aad ku hadashay aad qorin laga yaabo inaad ilowdo tomorrow berrina wax kalaad sheegto mogtahay ma laga hayaa waxaan dhihi lahaa inay fiiriyaan ay weydiiyaan guddoomiyaha baarlamaanka ay dhaheen dadkii hadlay wax qoraal ah ma nooga haysa aan fiirina waa muhiim sababtoo su-aal bay weydiin karaan ay dhihi karaan shalay saasaad tiri halkan ay ku qoran tahay beritoona saasaad dhahaysa waxbaa lagaga soo saari karaa tan kale arrinta adeega bulshada wasaarooyinaa jira oo kuley wasaarooyinaa la dhisaya tacliinta waxay leedahay wasaare caafimaadka wasaare ay leedahay arrimaha kale oo local government dowladdii hoosaa jirta ayadana shaqadeed marka bulshada ma aragtay iyo wixii laga qaban lahaa wasaarooyin laakiin waxaa muhiim ah oo dowladda xaggeeda markaan ka imaano waxaa waye waxaa jira right and responsibilities waxa la yidhaahdo oo dastuurka ku qoran dastuurka xuquuq buu siinayaa muwaadin waxaa loo baahan yahay dowladda inay ixtiraamto xuquuqdaas dhan yacni qofkii waa in la dhibaataynin la iska xirin haddii la xir maaragtay la qabto waa in baaritaan lagu sameeya haddii dembi lagu helin in la sii daya sidii oo kale waa in xuquuqdiisa shakhsiga xuquuqdiisa maalkiisa lagu xadgudbin shacabka dhexdooda waa in loo sheega arrintaas in dembi tahay haddii ma aragtay aada gashaan ayadana maxkamadii la horgeeya muwaadinkii in loo sheega asiga dowladdan inuu asiga iska leeyahay la rabaa inuu canshuurtii bixiyo in maaragtay wadooyinkii voluntarily ahaan dhiso hantida guud qaranka inuu ilaaliyo marka wixii dhan ownership in laisla leeyahay in la fahamsiyo shacab marka taasa marka lagu qaban karaa arrimaha guud oo bulshada waa mashruuc laisla leeyahay dowladdii iyo shacabkii oona maaragtay sidii ugu wanaagsaneed xagga dowladdan uga faa'iidaysan lahayd shacabkan uga faa'iidaysan lahayd waa soo gabagabaynaynaa ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahaa fikir ahaantiina iyo inta aad ku dari lahaydaan xildhibaanku marka uu eegaayo maxay tahay inuu u fiiriyo sharaxa ninka sharaxan inuu codkiisa siiyo waxyaabaha ugu muhiimsan maxay tahay aada is leedahay horta waa ayo qofka xilligan Soomaaliya ka saari karo kumeel gaarka ee ka abuuri kara dawlad waarta waa kow waxa Soomaaliya laga filayaa in dastuurkan la ansixiyo dastuurkan waxa ku jira qodobo aad u dhib badan oo ay kamid yihiin federaalka oo kale maana waa ayo qofka xeerin kara dastuur noocan ah ee gaarsiin kara dastuur ay dadka dhan u codeeyeen maana dawladdan waxyaabaha laf dhabarka ah ee loo abuuray ay ayadana kamid tahay okay Soomaaliya waxana qofkan waxa laga filayaa inuu u gudbisiyo maana qabiilo dagaalamaya ama koox dagaalamaya ee uu keeno ummad nabad ku wada nool ee codeyn karta maana gaarsiin kara 4 sano gudahooda hada ma sahlan lafteed maana waa ayo qofka noocaas bulsho isbedel noocaas ah hogaamin kara ayadana waa muhiim sidoo kale dawlad aan shaqeyn maanaha magacana jirto oo wax jiraan asaas laakiin si dhab ah u shaqeysa ee gaarsiisan macnaha madaxweyne ilaa iyo qofka ugu hooseeya wasaaradaha kari kara dawlad shaqeyso oo nadiif ah oo xalaal ah oo dadkan u adeegto abuuri kara ayadana laftigeedu waa arrin kale muhiim ah dadkan wadanka gudihiisa
ama banaankiisa ku dhibaataysanaya Soomaalida dhinac walba duruufaha ay ku jiro laftigeeda maanaha wadankii u noqon kara wadan ay ku soo laabtaan ayda laftigeeda ay noqdaan hoy ay soo tirsadaan ay ku soo haydaan laftigeeda noqon kara sidoo kale arinta dhaqaalaha maana Soomaaliya waxa la yiraahdaa ila dhaqaale badan weelada laakiin in dhaqaalaha laga faa'iideysto oo uu noqdo ila wax soo saar aydan laftigeeda waa muhiim sidoo kale wadamada dariska ah qof fahmi kara in aan nabad kula noolaano sababtoo wadamada dariska ma ka maarano waa isku qasbannahay laakiin waa inaan awoodnaa in aan nabad ku wada noolaan karno laakiin ay nabadaas ay ku saleysan tahay ixtiraam labada dhinac soo aniga waxaan isleeyahay tobadas qodob ayaa muhiim ah maxamed haye xildhibaankii codka bixinay maxay tahay inuu ka eego ama uu ka fiiriyo qofka uu codka siinayo musharaxa oo muhiim ay tahay in uu khudbadiisii iyo waxtarkiisa iyo aragtidiisa maxay tahay waxa uu muhiim ay tahay inuu ka eego si uu codka u siiyo run ahaantii musharaxnimadu laba qaybood horta laba waji bay leedahay mid waa mid qofka hore loo arkay oo horey wax u soo qabtay oo la ogyahay shaqada dawlad ka soo qaybqaabtay lagu qiimeeyo macnaha markaas wax qabadkiisa midna waa dadka cusub hadda ku soo biiray oo la yimid siyaasadda ku soo biiray ee la yimid waxa ay aaminsan yihiin iyo waxa ay doonayaan ummadda u qabtaan qodobo horta lagu saleeyay hadda ka hor way jirtaa dastuurkana way ku qoran tahay waan filayaa madooyin badan oo lagu arkay laakiin anu tan aaminsanahay waxay tahay maanta waxa u badan dadka meesha soo istaago 25 ka kooban horta waa dad aqoon yahana ah oo aad culays u leh oo aad ka dareemaysa karti in ay u yeelan karaan laakiin haddana shakhsiyan qofka inuu wadanka daacad u noqon hayo dadka dhibaatada ka jirta inuu qofka afka ka sheego ma ogiye ilaahay un baa daalcan kara qofka gudihiisa kuma qiimeyn karaan iyagu laakiin qofka hadalkiisa iyo waxa uu sheegayo un baa lagu qaadan kara run ahaantii in at least qofka ugu dhow oo loo malayn kara arintaas inuu xad doonayo in loo tala qaato ilaahay lagu maaragtay loo yeelo ma ogiye ma go'aanku way ku adagtaa ayaga say maanta uga soo dhex saaraan qof wax hawshaas qaban kara xasan gabagabadii baarlamaankii xubnaha ku jiray maxay tahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan inay ka eegaan sharaxi ay codka siinayaan kulay qodobadii hore aan u sheegay baan ku celinaya hore aan u sheegay markaan bilaabay qodobadii loo baahnaa laakiin waxaan soo qaadanayaa arrin aad iyo aad muhiim ah in laga helo shakhsiyad hadda oo doonayso inay noqoto madaxweyne saddexdii qiibada aan sheegay baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorka shakhsi u dhaxayn karo isla markaasna u hogaansami karo dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u dejisan waxaad ogtihiin dawladda ku-meel gaarkii ayadoo meeshaas ahdi qarameedkii marka oo meesha yaalay yani u qoranaa markaas laguma dhaqmin marka waxaa loo baahan yahay hadda sababtoo bini aadamku wuxuu qortay haddii uu ku soconin yani jidkii uu ka leexanaya marka waxaa loo baahan yahay shakhsiyad ilaalisa baarlamaanka maaragtay inuu yahay independent oo maaragtay faragelin ku samaynin judiciaryga oo garsoorkii inuu maaragtay madax bannaan yahay faragelin ku samaynin awoodda guud oo uu leeyahay oo ah inuu asnaanta wadanka uu yahay yani astaanta wadanka inuu yahay isla markaasna ilaalihii guud oo sharciga uu yahay aaminsan isla markaasna shakhsigaas think sidii dastuurkaba sheegay waxaa loo baahan yahay hataa daruuri ma aha laakiin dastuurka waxaa ku qoran inuu yahay qodobadiisa dhan islaamka uu ku salaysan yahay dastuurka yani qodobada marka shakhsiyad fahmi karto cilmigan casriga ah iyo culunta islaamiga si maaragtay labadii isugu keeno isla markaasna dastuurkii dadka ugu hogaamiyo way aad ma santiin intaas kusoo gabagabeynayna barnaamijka sidaan uga soo qayb gasheen dhammaantiinba aad ma santiin waa tahay daawadayaal waxaa inta aanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegeynay doorashada Soomaaliya ka jirta ee la doonayo in lagu soo doorto
madaxweyne cusub oo hogaamiyaha dowladda la doonayo inay goordhow curato waxaana barnaamijkeenu ku eegeynay qaybo kala gedisan oo ay ka mid ahaayeen xagga ammaanka nabadgelyada dhaqaalaha adeega bulshada xiriirka caalamiga iyo xuduudaha waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayay dhankayga bidix maxamed mukhtaar oo ah aqoon-yahan ku takhasusay xagga dhaqaalaha isla markaana ah la taliye ganacsi sidoo kale waxay igala qayb qaadanayay Dr. Maxamed Cabdi Cumar oo ahaa macallin wax ka dhiga jaamacadda London Metropolitan oo ku taala dalkan Ingiriiska sidoo kale waxay igala qayb qaadanayay garyaqaan Xasan Xaaji oo ah qareen sharciyada ku dheereeya iyo waliba xagga bini'aadnimada sharciga ku saabsan waxaana barnaamijka idin soo jeedinay anigoo Cabdirasaaq Socoto intaynu ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo